xafada isli shalay waxa lagu qabtay xuska suubanaheena maxamed naxariisna nabadgelyo korkiisa ahaatee shalayto waxa si weyn liskugu soo baxay xaafada isli waxa iskugu soo baxay culimo dhalinyaro uqaal aqoon-yahano iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa la iskugu yimid isli primary school culimo fara badan baa waxa ay qabaan mawlidka ama xuska suubanaheena maxamed naxariisna nabadgelyo korkiisa ahaatee inuu yahay bidco anagu ka hadli mayno ma bannaan tahay mise ma bannaana dabcan culimadu way ku kala duwan yihiin fikirka iyo madhabka sidaas darteed hadafkeenu waxa uu yahay inaan idin soo gudbino wixii dhacay ama wixii taagan sidaas darteed ka hadli mayno waxaan ma bannaan yihiin mise ma bannaana taasina waa qodob kale culimadii meesha ka hadashay waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan محمد صلى الله عليه وسلم فما وجدت في حمله مشقة حتى وضعته ما أنا يرين بيتنا وحي إنها بيرات درينا وعليسة إلى أن تنتجيه وحكليت فلما فصل مني خرج معه نور مركو يغسو بحي ويلكي نبي الله محمد هذيك دلني ويدي ما كان رميسا فلما فصل مني خرج معه نور وحال صباحي يلا ينور النساء كتبت أهل السير كون إذن بيكون ولا طالع أو يكتب هذا قصة عيالها وحيلاله فلما فصل مني بدو يقصوا فصلوا ما النبي عليه الصلاة والسلام ويقصوا بحي خرج معه نور وحال عيسى صباحي بيتر النور أضاءت له ما بين المشرق والمغرب نور كاسو الله في مشرق يا مغرب وراح ودع يقرأ صباح كصباح انت ودع حيث إليه ثم وقع على الأرض أرضه كل عبيد واضعا يديه معتمدا على يديه يسوى الذي سدعمود عسكريه رافعا رأسه إلى السماء النبي عليه الصلاة والسلام markuu soo dhalanayayba sida ciyaalka caadiga u dhashaa nabiga muuse u dhalanin sida hooyadii inoo warinaysay hooyadii ayaa inoo caddaynaysaa markuu dhalanayay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan caadi ahayn oo qof weyn oo caqligiisa uu taam yahay sidiisii oo kaleto gacmaha ku taagsaday isagoo madaxa dhulka ka ceshanayo kuna ishaarayo midda iyada sarrayntiisa iyo shanigiisa sida uu u weyn yahay waxaa kaloo warinaysaa gabadhii habeenkaa la joogtay zawjatu abilcaas ee umulusooyinkii aaminata binti wahab ka mid ahayd waxay leedahay waxaan ka mid ahaa haweenkii u xaadiray inay ka umuliyaan aaminata binti wahab waxay leedahay famaa min shayin nadartu ilayhi habeenkaa ma jiro shay aan xaggiisa eegay ilaa nuwira shaygaa waa la iftiiminayay oo gurigii iyo eryadii oo dhanba waxay noqotay maalin oo kale markaasaa waxay leedahay ورأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى خشيت أن تقع علي markaasaa waxaan arkay leedahay xidigihii oo soo dhawaanayo ilaa aan ka cabsado inay dusha iga soo dhacaan culimmadu xidigaha waxay ku fasireen malaa'igta u dabaaldegaysay oo weynaynaysay oo ku faraxsanay dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlu samihi baa sidaa ugu dabaaldegaya habeenkii nabiga la dhalayay sala allahu calayhi wasalam kadib maxaa dhacay hooyadii markay aragtay cunugan sha'nigiisa sida uu yahay inuusan ilmaha lamid ahayn aad bay ugu faraxday waxay u dirtay addoonteedii awowgii oo markaa noolaa cabdulmutalib ilaan aabihii isagoo loo bilow caloosha ku jiro xabiibka calayhi salaatu wasalaam ayuu dhintay cabdullaahi bin cabdilmutalib awowgii oo markaa mas-uulka ahaa reerka ayay u dirtay addoontii baa u tagtay way ugu bishaaraysay waxayna u sheegtay inay aamina doonayso wiilkaa in loo bixiyo muxamed ishaaraad ay aragtay darteeda iyo xawaashiisa sida ay ka dareentay inaynay caadi ahayn وصور ده يسوى فرحسن
wiilkii buu la booday markaasuu wuxuu la tagay beydka markaasuu ilaahay ku mahadiye wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii acطaanii hada algulaama طayib اlardaani uciiduhu bilbeyti di larkaani xataa araahu baaliga alarkaani baaliga albunyaani wuxuu leeyahay eeg awowgii baa saa ugu faraxsan wuxuu yidhi waxaa mahadle ilaahaygii i siiyey cunugan qayibka wiilkan gudgoolka badan ee qiimaha badan allihii i siiyey baan ku mahadinayaa ku faraxsan yahay waxaana magangeliyey kacbadii buu la hoos tagay wuxuu yidhi waxaan magangeliyey buuna magan oga yeelay beydka ilaahay ee kacbada ah ee rugliyada oo saaxiibka ah ilaa aan ka arko isagoo xibnihiisu ay ka xoogoobeen oo cunug qawi ah oo nin baaliq ah ilaahayna wuu ka dhigay sidii iyada ahaydo rasuul buu ka dhigay ummaddan ilaahay uu soo diray sala allahu calayhi wasalam محمد بو بحيي كوكا جوجا وحي وجعلا بو اها النبي عليه الصلاه والسلام هذا وحي دتي غبدي وحي دتي ان ابي لهب ايون بشاريسه ابي لهب ايون تتي ويوشك ويل كيرو ودشاي asxaabta janalkayga ku xiran suldaan shige waxaan idin leeyahay iyo kuwii ku cusubba subscribe gambaleelka furo shayrta commentiga intuba waa lacag la'aan waxaan idin leeyahay haddee haligu caawiyo garabkiinaan maanta u baahanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu